kulanka wadaagaha aaga tamarta Somaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana kulankani qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta gudoomiyaha komishanka nidaamka tamarta gudoomiyaha hay'adda dhawrista xiriirka wadaagaha tamarta Somaliland munaasabaddan ayaa saaka ka furmay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa kulanka wadaagaha aaga tamarta kaasi oo socon doona muddo 2 maalmood muddada uu socdo kulankani waxa lagu gorfayn doonaa horumarka laga sameeyay aaga tamarta caqabadaha jira iyo sidii looga sameyn lahaa hanaan midaysan oo lagaga gudbo caqabadaha jira waxa jooga dhammaan maalgashadayaashii tamarta oo dhan baa jooga waxa jooga dadkii professionalka ahaa ee hawshan ku hawlanaa maanta waxa weeye markaa kulan ka duwan oo aynu kaga fikirayno mustaqbalka ummadda Somaliland sidaynu dariiq ugu jeexi lahayd ay Somaliland ay ku heli lahayn koronto la isku halayn karo la awoodi karo oo teedeeduna fiican tahay siyaasadda dawladda waxay tahay in qarankan ama ummadda Somaliland ay hesho koronto la isku halayn karo qiimaheedu jaban yahay la awoodi karana si taa loo gaaro qodobo badan baa wax badan ku xeeran mechanisms fara badan bay leedahay waxay u baahan tahay marka hore in shuruucdeedii iyo istiraatiijiyadeedii iyo siyaasadeedii aynu meel dhigno runtiina waan filayaa inaynu hadda siyaasadii aynu ku hogaamin lahayn istiraatiijiyadii halka aynu gaarsiin lahayn aynu ku shaqeynay annagu aad uga mahad celinayna shirkadaha korontada in qiimaha hoos loo dhigo targetka dawladuna wuxuu yahay runtii 5 sano xukuumaddu joogto in la gaarsiiyo 20 senti in la gaarsiiyo 5 sanadood laakiin si adag looga shaqeeyo shirkadaheeduna halkii ay ku gaari lahaayeen halkaas la dhiirigeliyeen tabada cusbanaanta ka dhaliyaan dabka oo aynu ka guurno mashiinadan cunaya shidaalka faraha badan madashan maanta aynu joogno waa madal furan 2 cisho inoo socon doontaa waxaynu ka dooni doonaa sanadkiina soo dhaafay caqabadihii nagu yimiday hawlihii aynu doonaynay inaynu qabanno sanadka soo socda qorshayaasha leenahay sidii lagu gaari lahaa inagoo iskaashanayna dhammaan stakeholders halkan jooga ugu dambeynna u bedelayna fulin action points kaalan ka soo baxay inuu bedelayna fulin waxaan rajaynayaa 2 cisho inuu ka soo bixi doono markaynu maskaxda tuujinno wax ummadan anfacaya mustaqbalka dhow ka dhaxe iyo ka fog aynu tiigsanayno inaynu gaarno insha Allah waxaan idinku soo dhaweynaynaa kulanka wadaaga aaga tamarta oo ah kulan aynu kaga arintisanno sidii loo heli lahaa koronto jaban oo la isku halayn karo isla markaana bad qabta oo ah 3 shay oo aad u culus oo in la iswaafajiyaa ay waqti badan iyo inooga baahan tahay nidaamo badan iyo xeerar badan maadaama muddadii ugu dambeysay commissionka wasaaradda iyo quality controlka iyo shirkadaha iyo jaamacadaha dhammaanteen aynu ugu jiray hayaan dheer sidaynu u samayn lahayn hadafka sidii loo gaari lahaa oo ay ugu horeyso samayntii xeerka tamarta ay ku xigto siyaasadii tamarta ay ku xigtay istiraatiijiyadii tamarta ay ku xigtay nidaamintii regulationadii ka dhalanayay oo wasaaraddu waday qaybo commissionku waday qaybo quality controlkuna uu iminka isaguna uu door weyn ka qaatay oo uu 7 xeer nidaamiye isaguna wado marka hadaf weyn oo aynu gaarno isaguna ahaa hadafka ka sii weynna wuxuu ahaa in commissionka tamarta iyo wasaaradduna ay dhimeen qiimihii korontada 50% taasoo ku timi wada shaqaynta dhammaanteen aynu ka wada shaqaynaynay oo ah hadaf aad iyo aad u weyn oo ay mudan tahay in loogu saacabiyo commissionka tamarta hadafka ay ka qaateen maadaama ay dhimeen sidoo kale shirkadaha korontada oo iyaguna si weyn loo shaqeeyo oo la'aantood aan la dhimi karayn iyo sidoo kale inaynu dardar gelino isticmaalka tamarta cusboonaata in badan aynu ka soo hadlayna culeyskeeda qaaligeeda laakiin maanta culeysyada kale ee caalamiga soo kordhay ay horteena yimaadeen oo ay inagu fureen culeysyo kale marka taana waxa weeye maadaama aan maanta dareennay
in guryaha shirkadaha dhammaanteen aan ka qayb qaadano gudubka tamarta cusboonaata. waxaan rajaynaynaa inay nooga soo baxaan kulankan in la helo ama aynu caqabadaha cusub ee qorshayaasha cusub aynu isla garanno, faham midaysan ka yeelano, qorshe hawleedo ka yeelano, xoojinta wada shaqaynta sektorkana aynu xoojinno. inkastoo uu xoogaystay oo uu dhidibba adag ku taagan yahay, aynu halkaa ka sii wadno. ilaalinta iyo tayaynta iyo standardskina quality controlku gacanta inoogu hayo, maadaama waxa ugu yar aynu qaban karaa maanta ay tahay socketiskii oo regulationkiisi diyaar yahay, oo caqabad ina wada haysata oo cid kooniya aana haysan ah, inagoo dhaqaalaheenu yar yahay 9 baraysoo kala duwan, 9 jaarjar aynu isdaba wadno, oo caqabad ina wada haysata shacab iyo shirkado iyo lacag badan inagaga baxdo. marka taas sidaynu ilaalin lahayna iyadana aynu gaadhno. marka madasheenani waxa weeyaan madashani 6 biloodka ahayd aynu kaga wada tashan jirnay energy sector-ka oo isku dhaman, oo ay inala joogaan wasaaradaha kale overlap aan leenahay, sida wasaaradda maaliyadda, wasaaradda deegaanka, wasaaradda qorsheynta iyo dhammaan muxuu ahaayay danayaasha aaga tamarta. marka sessionkeenu haddaan si kooban uga warbixiyo, waa sessionkeeni 6 biloodlaha ahaa, lagu ogaanayay 6 bilood soo dhaafayna maxay noo qabsoomo horumar aan ka sameynay, action point-na maxay noo noqon doonaa 6 bilood ee imika dambe soo socota. waxaan jecelahay in haddii la hayraado shirkeenan inuu guul ku dhamaado insha allahu tacaala. waxa ka soo baxana sidii wasiirku sheegay ay noqdaan wax 10 sanadood ee soo socda aynu ku dhaqanno. waxa dhaqan galay 10kii sano istaraatiijiyadii oo dhowaan iyaduna miiska iman doonta. wax badan oo aynu u baahanahay inaynu synchronization ku samayno, isu geyno, oo cidiba in hayso ayuunbaa shirkan gudhigiisu yahay. ujeeddada kulankan oo soo socday sidaan warka ku helay ugu yaraan 2 years buu soo socdo, maraha sanadkii 2 jeer la qabto. ujeeddada guudna tahay maxaa qabsoomay, maxaan inoo qabsoomin, iyo halkeen u soconaahay ujeeddadu guud tahay. markaan intaa halkaa kaga gudbo, dee dhammaan daneelayaasha dadka daneynaya korontada iyo enerjiga waddanka oo iyaguna had iyo jeer ka soo qayb gala magaranaysaa kulankeennan. laakiin anugu kolley fikirka guud een qabo korontadu iyo enerjiga Somaliland wuxuu gaadhay meel aan la qiyaasi karin runtii. marka laga hadlo waxaad arkaysaa magaalo aqal meel cidlaa ku yaalo korontadu ka shidanta. in quality-ga la saxo, in la hagaajiyo, in tayada sare loo qaado, in qiimaha hoos laga waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin magaranaysaa waxyaalaha shirarkeenani uu qabsoomay. laakiin runta marka laga hadlo, shirkadda korontooyinka ee waddanka jiri one of the best weeyaan aabsiin. ma okay baan nahay, misaalkii baan joognaa, ma dibadhac baa jira, hadday wax dhaceen maxay u dhaceen, intaan in la qiimeeyo, in la waafajiyo magaranaysaa, in la iswaafajiyo dee jihadaan u soconno. jihadaan u soconno waxa weeye inaan dadkuna koronto affordable macquula helaan, iyaguna ayna khasaarin dib muuqdo, oo shirkaduhu ayna khasaarin dib. markay waxa weeyaan dee khasaaraan dee waxa weeyaan dhuxushii baan ku noqonaynaa anusaan qabo. in la iswaafajiyo dee jihada loo socdo, haba gaabiso oo dee gaabisa jiro, laakiin de inaan the same direction u wada socono hadii la yidhaahdo. wada shaqayn baa wasaaradda naga dhexaysay hay'adda quality controlka. haddaba iyadoo hay'addu muhiimaddu siinayso wada shaqaynta ka dhexaysa hay'adaha iyo wasaaradaha dowladda, wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa waxaanu samaynay 7 heertayeed annagoo isla kaashanayna stakeholderska iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo commissionka. 7daas oo heertayeed oo aan samayn dhawaana insha allahu tacaala shaacin doono, oo ka mid ah waxyaalaha in halkan u fadhino maanta mar haddaynu energy ka hadlayno ama dadka ka hadlayno.